isla markaasna waxaan idiin soo gudbinayaa dikri ayuu ii sheegay oo aad iyo aad inuu uu u anfacay oo ii sheegay ayaan idiin soo gudbinayaa. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كسو دواذا شغريمي channel. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل مرادي ومراد المسلمين. وحان لكل مي معلن كمت معلمين مدارستا قرآنك وان لفريستي سؤال أيان ويديي وحان رهي معلمو كل معلن مدرسو معلن دكسي آياتها دكسي قرآن آياتها وحان كاربا بانيري haddii ay jirto aayad aad tijaabisay ay wax ku qabatay amaba suurad aad tijaabisay amaba dikri aad tijaabisay tajribo aad ku samaysay adigoo xaalad aad iyo aad u adag ku sugan magaranaysa aad tijaabisay isla markaasna ay ku shaqaysay waxay doonta ha ahaatee suurad alla suuraday doonta ha ahaatee kuwa hore loo maqlay iyo kuwa oo magaranaysa hore aan loo maqlin in qur'aanku aad iyo aad ayay sirtiisa ay u badan tahay. marka ii sheeg adiga Allah subxaanahu wa tacaala qofba sirta qur'aanka qofku doono ayuu u furaa. markaasuu wuxuu dhahay waan ku hayaa buu yiri arin aad iyo aad u adag qabsatay ayuu iiga sheekeeyey oo aan xitaa markii la ii sheekeynayay aan la xanuunsaday. waxaan idiin soo gudbinayaa qisada ku dhacday ayaan idiin soo gudbinayaa aniga i xanuunjisay. isla markaasna waxaan idiin soo gudbinayaa dikri ayuu ii sheegay oo aad iyo aad inuu u anfacay oo ii sheegay ayaan idiin soo gudbinayaa. waxaan sidaas aan u lahaa maadaama macalinkan tijaabo ama tajribo uu sameeyey oo ku guuleystay. dad baa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo badan ay tijaabiyeen ayna ku guuleysanin, laakiinse Allah subxaanahu wa tacaala macalinkan ii sheeg adiga waxa uu soo gudbiyey amaba waxa uu sheegay in magaranaysa aan kuu soo gudbiyo si ay ku anfacaan ayaan ugu talagalay insha Allah. dartiina ayaan su'aalahaas oo kale mashaayikhda aan u weydiiyaa, macallimiinta aan u weydiiyaa si magaranaysa wax ku anfaco aan kuu soo gudbiyo insha Allah biidhnillaahi alkariim. dikri cusub ima uuna sheegin, dikri aad taqaanid ayuu ii sheegay, laakiin waxaan ku soo gudbinayaa sida uu u isticmaalay iyo dikrigaasi waxa uu ahaa iyo dhibaatada qabsatay ayaan ku soo gudbinayaa. la soco video ilaa dhamaadkiisa. haddii aad ka hesho fadlan like sidii roobka inooga yeel, subscribe noo saara. waayahay macalinka markaan su'aashaas aan weydiiyey dikri aad isticmaashay ama aayad ama suurad aad isticmaashay oo adoo dhibaato ku hayso ma jirtaa baan idhi. wuu la soo booday haa buu dhahay. dhibaatadii ayuu ii sheegay. wuxuu dhahay macalin dugsi ayaan ahaa. dad ayaa ii wacay. magaalada muqdisho ayaan joogay. ayaan madrasa ka dhigayay. awlaadeyda iyo xaaskaygana magaaladan tan ee Baydhabo ayay joogaan buu yiri. telefoon ayaa la ii soo diray, waa la ila soo hadlay. madrasa ayaan ku haynaa baa la yiri. mishaar fiican waad qaadanaysaa ee soo dheeray. wuxuu dhahay maadaama intana wax fiican aad ka qaadanaysid xaggana wax fiican aad laga siinayo, meesha awlaadaada iyo magaranaysa xaaskaaga ay joogaan unbaa wanaagsani, xaggaas un aad ayaan isiri buu yiri. magaaladiisa Baydhabo ayuu yimid. madrasadii waa uu hayay. waad ogsoon tahay mar haddii madrasada maamul uu ka jiro, ii sheeg adiga maamulkana maamul jaahila uu yahay. qofka cilmiga leh ama qofka magaranaysa diinta wax ka yaqaano oo qaari qur'aanka ah waa ay isku dhiboodaan. qofaan wax hogaamin jirin haddii hoggaan loo dhiibo wax badan buu kharibaa. muddo ayuu magaranaysa madrasadii dhigayay ilaa iyo wuxuu dhigayay 2 sano ilaa 3 sano taqriiban in ayuu dhigayay. waxaan looga sheekay marka hore masaajidna waa lagu dhiibay, imaam baa laga dhigaya. ii sheeg adiga madrasadaasna waa dhigaysaa, ciyaalkaasna wixii ay awoodaan aad ka qaadanaysaa.
masaajidkana waxbaa lagaa siinaya ayaa lagu soo kaxeeyey. marka hore horta masaajidkii waxbaa lagaa siinaya waa la gooyey, waa laga gooyey masaajidkii waxba lagama siinaynin. saas ay tahay imaam waa iskaga ahaa, ajar ayuu ka raadsanayay, laakiin ciyaalka ayuu wax ka qaadan jiray. haddeertaan ciyaalkii waxuu ka qaadanayay ayaa haddana magaranaysaay aad iyo aad culeys loo saaray. madrasadii waa iskaga tegey, madraso kale ayuu tegey, isaga oo markaasi ciyaalka isku soo urursaday oo sheekadiisa ay fiican tahay ayaa haddeertana dad kaleente ii sheeg adiga barakac ku sameeyey. wuxuu dhahay wixii kasii horeeyey ilaa madrasada sideedaba macalimiinta dhibaatada haysta waxa weeyaan ii sheeg adiga wax keed ah ma haystaan. haddii amar degdeg ah ku yimaado in wax ay deensadaan amaba in ii sheeg adiga waalidiinta wax isugu soo dardaraan ama isugu soo ururiyaan, sidaas yacni lagu saaciido ama lagu kaalmeeyo unbay noqonaysaa. macallin isku filan maba jirabo. tii hore waa uu ka soo tegey, tanna waa loogu talagalay oo dad ayaa u tashtay inay magaranaysaa meesha ay ka soo barakiciyaan. waa laga soo barakiciyey. marka wuxuu yidhi dhibaatadii iigu danad i haysta waxa weeyaan buu yidhi xaaskaygii waa ii sheeg adiga xaamilo way dhahay 9 bilood ayay gaartay, cawo may dhalaysaa, habeen dambe may dhalaysaa ayaa lagu jiraa. wuxuu dhahay inan yar oo aniga aan dhalena xanuun ayaa haayo, aad bayna iga xanuunsan tahay buu yidhi. xaaladan aad bay iigu adag tahay buu yidhi, wax aan haayo haba yaraatee ma jirto. wixii aan hel dab unbaa la saarayey, ii sheeg adiga ciyaal unbaan ku daweynayey, caynkaas unbaan ahaa, deen ku gud ayaan bil kasta ku gaari jiray buu yidhi. waxaan haaya ma laha, waan macaaday buu yidhi, gabadhii ii sheeg adiga cid kale saacidayso ma laha. wuxuu dhahay aad ayaan u wareeray, cid kaleento oo maanta aan garab weydiisanayaan haba yaraatee ma jirtuu dhahay. waa yaabay siday wax u jiraan. waxaan go-aan ku gaaray buu yidhi xanuunka i qabto ama magaranaysaa sidaan u xanuunsaday darteeda, yacni gabadhii oo magaranaysaay yacni dhammaysatay oo cawada may dhalay habeen dambe dhalay leeyahay, gabdhihiisa mid ka mid a oo xanuunsan, aad u xanuunsan, isagii dhaqaal la-aan hayso, ii sheeg adiga ummaddii magaranaysaay oo maciin bidayey, dadkii oo maciin uu bidayena ay saas ay u galeen, laba dhan laga soo cayriyey, wax aan sameeyo ma laha buu yidhi. markaasaan mar istikfaartan ku ordaa ma dhammaysti buu yidhi, mar qur'aankiyaan akhriyaa ma dhammaysti, marba meel ayaan madaxa la galaa. wuxuu dhahay aad iyo aad ayaan u wareeray, qalbigayga ma fadhiyabo, qur'aan inaan akhriyaan rabaa ma akhrin kari, istikfaartii waa iska bilaabaya, waa niyad ma hayuu dhahay, waa fikiraa buu yidhi. haddii qof magaranaysaa xaamil qur'aan ah haddana ii sheeg adig dhibtaan qabatay aad bay u xanuun badan tahay. wuxuu yidhi marka habeenada ka mid ah markaan salaad cisho tukaday 6 saac iyadoo la maraayo oo saan u fakerayay, waxaan is iri cawada iska seexa, bal 2 rakac tuko, ilaahay bari, iska seexo. waaga markuu bariyana inaan dhuuntaan rabaa buu dhahay, xaaskaygii ilmahayga aan ka dhuunto, haddii magaranaysaay ii sheeg adiga aawi la dhaho, markaasi yacni cid magaranaysaay markaasna cid u soo baxdo oo yacni dabarta lama waynayo. marka foolxumadan inaan isaga hindhalaabto aan magaranaysaay safar aan aado ayaan go'aansaday buu yidhi. 2 rakac istikhaara ayaan tukaday buu yidhi, oo magaranaysaay inaan baxayo iyo inaan iska joogayo midkood inaan magaranaysaay ilaahay uu igu ilhaamiyo ayaan tukaday buu yidhi. waa iska seexday. habeenkii markaan seexday waxa uu dhahay waa la ila hadlay, riyo ayaa la igula hadlay buu yidhi. dikrigii uu ii sheegay ayaa loo sheegi rabaa. riyadani riyo magaranaysaay maasha allah waaye. riyooyinka aadka ugu wanaagsan waxa way mataqaanaa markaad ciriiri aad ku jirtid, waxyaabaha aad ku riyooto, aayad lagugu akhrinayo ama suurad lagugu akhrinayo ama dikri lagugu tilmaamayo sida macallinkan oo kale, aad bay u wanaagsan tahay. maxaa yeelay waa farajkii ilaahay uu ku furi lahaa ayaa lagu sheegayaa. marka wuxuu dhahay waa la ila hadlay buu yidhi, cod aanan garanaynin laakiin aan maqlaay fasiix ah ayaan ila hadlay buu yidhi, oona cod weyn ah.
markaasaa waxaa la dhahay adiga saliga nebiga maxaad u ilowday? saliga nebiga laazim haddii aad rabtid in aad culayskan ka baxdid. wuxuu dhahay saliga nebiga laazim ayaa la dhahay uu dhahay. waa soo kacay uu dhahay. waan farxay buu yidhi. isla markii waan tukaday buu yidhi. waan soo kacay buu yidhi. waan weysaystay buu dhahay. markaan 2 ragcadood oo sunno aan tukaday saliga nebiga ayaan u fariistay buu yidhi. saliga nebiga ayaan daldalayay habeenkii ilaa iyo maalinkii. culayskii weli waa uu jiraa. xaaskaygana waa magaranaysaa ii sheeg ma habeen dambaa ma cawada ma maanta ayaa la leeyahay wadnaha ayaan farta ku haystaa buu yidhi. habeenkii oo dhan maalinkii ayaan daldalayay saliga nebiga. galabkii ayaan waday. habeenkeeda anigoo hurdaya ayaan waxaan ku riyooday buu yidhi aniga oo markaasi haraad i haayo aad iyo aad u ooman. haantii gurigayga taashaan furay biyo ma laha buu yidhi. saddexlahoo meel yaalay ayaan fiiriyey. haraad aad u daran ayaa ahaaya buu yidhi. saddexlihiina waxba kuma jiraan. waan yaabay. gambar baan fariistay. markii aan fadhiistay dhulkaan saas ugu dugay buu gacmahayga intaan saas aan u saartay jilbahayga dhulka saas aan ugu dugay ayaan waxaan arkay buu yidhi dhulkii oo soo qoyay. gurigayga dhulkiisa oo soo qoyay ayaan arkay buu dhahay. gacantaan saan ku qoday qoyaankii wuu soo batay. badiil meesha yaalay ama majaraf maa la dhahaa majaraf badiil iska dheh midka ciidda lagu qodo ayaan soo qaatay buu dhahay. lugtaan saas u geliyey yacni badiilka dhulka intaan ku taagay ayaan lugta saas intaan ugu riixay ayaan soo saaray buu dhahay. mise biyo ayaaba ka soo baxaybo. haddana mar labaadan ku celi mar saddexdaan ku celi biyihii biyo nadiif ah macaan ayaan arkay buu dhahay. saxbadii ayaan magaranaysaa inaan ku cabo ayaan gudagalay. waan dhergay buu yidhi. markaan soo toosay waxaan arkay calooshaydii oo biyihii aan ka dhergay. dhadhankii biyaha aan dareemayay oo hadeertaan ani aan dareemayo si toosaan u dareemayo ayaan soo toosay buu yidhi. talow riyadaana maxay ahayd anigoo leh ayaa isla markii waxaa maskaxdeyda ku soo dhacday buu yidhi. cid kale iima fasirin aniga ayaa fasirtay buu dhahay. waxaan dareemay in gurigayga dhexdiisa madrasa aan ka dhisto oo Allah subxaanahu wa tacaala uu igu dhowri doono ayaa ii soo baxday buu yidhi. allahu akbar. xaqiiqatanna sidii ayay noqotay. waaga markuu bariyey ardaydii wuxuu u dhigi jiray waalidiinta ayuu isugu wacay. wuxuu dhahay waad ogsoontihiin dhowr meel ayaa magaranaysaa shayaadiin ay iga soo cayrisay oo qofaan diin iyo magaranaysaa nidaam waxna aan aqoonin ayaa isoo cayriyey. gurigayga alxamdulilah rabbil caalamiin guri ayaan leeyahay boos ayaan leeyahay. gurigayga ilmahayga ay degan yihiin dhinacna ay deganaadaan dhinacna 2 qol la iga dhiso ayaan rabaa buu dhahay. sidiiba ilaahayba kuma uu dhibin. dugsigii waa loo fududeeyey. jiingad ayaa loogu taagay 2 qoloo jiingad ayaa loogu taagay. waa loo shamiindayey. dahman ayaa loogu xirxiray. waa la qurxiyey. madarasad kala kacsan ayay noqotay madarasadii. xaaskiisa markay dhashay lacagtii loo keenay dugsiga markii la dhisay wax uga soo hareen ayuu magaranaysaa umulisadii iyo wixii uu iska siiyey. uurkiina wuxuu noqday gabar fartuumaat ayaa u dhalatay. madarasadiisa gurigiisa ay ku taashaa. cid magaranaysaa ka cayrinaysa amaba cid magaranaysaa soo fargelinayso ma laha. labadii meel ee laga soo cayriyey ardaydii asaga wax uu u dhigayey madrasadii gurigiisa uu ku dhistay ayayna ugu yimaadaan. arday kale ayaa ku soo go'day. sida yacni heer waxaa la gaaray madrasadii la yiraahdo arday la qorayo ma jirto waa ay buux dhaafisay la dhaho ayay gaartay. axibbatii fillaah. saliga nebiga bal eeg. saliga nebiga ciyaar ma aha. siiqo kasta adiga aad la timaadid midka ibraahimiyada ha ugu fadli badnaadee aad bay magaranaysaa ay u wacan tahay. wadaadkan ilaahay wuxuu ku dhowray saliga nebiga laazim khasaari mayside insha allah biidnillaahi alkariim. maanta fiidiyaheena intaas ayaan magaranaysaa kusoo gabagabaynayaa. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu aad kuugu anfaco aadna aad noqotid midkii ii sheeg adiga qofkii ka faa'iidaystay in aad noqotid ayaan ilaahay ka rajaynayaa. wixiin haleeyey naf iyo shaydaan ay ka ahaadeen ilaahay ha iga dhaafo. waxaan hagaajiyey faminallahi xaggiisa ay ka ahaadeen allah naga ajarsiiya dhammaanteena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.